toban su'aalood oo ku saabsan jirka bini'aadamka ayaan ku weydiin doonaa. Isku day adiga inaad ka jawaabtid inta aan aniga jawaabta ku siinin ka hor. Su'aasha koowaad waxay tahay sheeg muruqa ugu weyn ee jirka bini'aadamka. Muruqa ugu weyn ee jirka bini'aadamka wuxuu ku yaalaa qaybta gadaale ama barida waxaana loo yaqaanaa gluteus maximus muscle. Su'aasha labaad meeqa lafood ayaan leenahay? Jirku wuxuu ka kooban yahay 206 lafood. Su'aasha saddexaad waxay tahay sheeg hormoonka kontaroola hurdada qofka. Hormoonka kontaroola hurdadeena waxaa la dhahaa melatonin. Su'aasha afaraad meeqa lafood ayaa ku taala madaxa qofka bini'aadamka? Lafahaasi waa 22 lafood. Su'aasha shanaad waxaad sheegtaa nooca ugu badan dhiigga. Noocyada dhiigga nooca ugu badani waa O+. Su'aasha lixaad waa tee lafta ugu yar ee ku taala jirka bini'aadamka? Lafta ugu yar ee ku taala jirka bini'aadamka waxaa loo yaqaanaa stapes bone. Su'aasha toddobaad waa kee neerfaha maamula dhoola caddaynta qofka bini'aadamka? dhoola caddaynta qofka bini'aadamka neerfaha maamula waxaa la yidhahdaa facial nerve. Su'aasha siddeedaad cudurkee looga hortagaa tallaalka BCG-ga? Tallaalka BCG-ga waxaa looga hortagaa xanuunka Soomaalidu u taqaano qaaxada ama TB-da. Su'aasha sagaalaad meeqa liitar oo dhiiga ayaa ku jirta celcelis ahaan jirka bini'aadamka? Jirka bini'aadamka waxaa ku jirta 5 liitar oo dhiig ah. Su'aasha u dambeysana waxay noqonaysaa xubintay ka tirsan yihiin duodenum, jejunum iyo ileum. Hore ma u maqashay? haddaba jawaabtu waxay noqonaysaa waxay ka tirsan yihiin small intestine. haddaba meeqa su'aal ayaad ka jawaabtay oo aad garatay intaanan jawaabta ku siinin ka hor?